waalidkuna gabadha ma qasbi karaan oo ninayna rabin kuma qasbi karaan hadday yidhaahdaan ilaa waa ku habaaraynaa habaar iyo duco qaado oo habaarka ilaa aqbalo soo ilaahay inuu aqbalo maaha haddaad si khaldan ku habaarta lagaa yeeli maayo maanta dhan habaar oo lacnad haddadato yaa kaa yeelaya waad khaldan tahay waalidku waa khaldan yahay ilaah baa idinku dhaariyey bal gabadha muuqaalkeeda eega siday u da'yar tahay waxay ku jirtaa xilligii waxbarashada ay bilaabi lahayd mustaqbalkeedii la dhisi lahaa gacanta inta laga qabta iskuulka la geyn lahaa lala talin lahaa la waanin lahaa loo caqli celin lahaa ayaa inta la soo kaxeeyey laga iibsaday aabbahan da'diisu intaas jirto السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وادي سلامي داوديال ميل كستا oo aad dunida daafaheeda aad naga daawanaysan halkan waxa idin kaga muuqdo aroos cusub maalmihiin la soo dhaafayna baraha bulshada aad iyo aad loo hadalhaye waa aba Soomaaliyeed da'diisan lagu sheegay 70 ilaa 80 jir gabadha uu guursaday da'deedana waxa lagu sheegay 14 jir waa kaaf iyo kala dheeri halkan uma aan soo fariisan in aan eray qaldan hawada u mariyo aabahan Soomaaliyeed sharafta iyo karaamadana leh waalidkeygana iguma soo barbaarin inaan u gafo dadka iga weyn sida ay tahayna runtu waa lama huraan in hawada la isku mariyo la iskuna sheego mar walba haddaba gabadhan yar ee aad arkaysaan ee 14 jirka aqligeeda wali waa ceerin oo ma ahan mid aqligeeda kala go'ay halka usan iyo halka u xun intaba aan kala saari karin haddaba aabaha Soomaaliyeed ayaa wuxuu u tagay familka gabadha kadibna wuxuu ka codsaday in gabadha la siiyo laguna mehriyo kadib maxaa dhacay aabihii ayaa wuxuu codsanayaa lacag tiro badan si uu gabadhiisii u iibsado dhiigeedii iyo dhacaankeediiba halkaas ayuu aabaha Soomaaliyeed ee da'diisa 70 ilaa 80 jirka ah wuxuu ballan qaadayaa sidii ubixiyo kale in hooyada iyo aabaha lacagta inuu shubi doono mar alaala markii hooyadii iyo aabihii ay arkaan lacagta intaas la eg ee lagu indhasar caadiyane ma fiirinayaan rabitaanka gabadhooda iyo mustaqbalka aayaha dambe ee waxay fiirinayaan shilimaadka markaas u muuqdo waxayna ka beec mushtirayaan dhiigga gabadhoodii inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun kadib waxay u tageen gabadhii waxayna ku yiraahdeen aabe waxaan rabaa inaan ku bixiyo waliba ku siiyo odaygan aabahan Soomaaliyeed ee 70 ilaa 80 jirka ah gabadhii ayaa qaracmayso meeshii ayna waxay ka bilaabaysaa inay ilmada iyo diifka intaba isku darto waxayna ugu cudur daaranaysaa aabbo ninkan aad buu iga weyn yahay umana qalma noloshayda mana guursan karo laakiin waxa lagu jawaabayaa dhaqanka Soomaaliyeed ee soo jireenka ahaa ee gabdhaheena lagu baabi'iyay ee hooyooyinkeena Soomaaliyeed lagu baabi'iyay oo ah ninku dhali kara ayaa ku dhaqi kara ee guurso gabadha markay ka dhaga adeegtayna maxaa la yiri laba far ayaa loo soo taagayaa far duco ama far habar kadib waxay ku qasban tahay gabadhi inay farti ducada qaato ayadoo isciil kaambinayso waliba aan raali ka ahayn ay mustaqbalkeedii oo idil waxay u hibeynaysaa aabaheedii hooyad balsi ay u habaarin halkaas ay nolosheedii mugdi u galaysaa waxaa suuragal ah aabahaas da'diis 70 ilaa 80 jirka ah inuu ka dhalo 2 ilaa 3 caruur ah hadduu ilaahay cimrigiisa siiyana halkaas ayuu haddana ku sii furayaa gabadhii yaraad ee 14 jirka ahayd xilliga ee waqtiga haysatay ee wax baran lahaydna waa la dhaafsiiyay oday ayaa qoorta loo geliyay 3 cunug markii ay dhashayna halka ayaa lagu furay gabadhii waxa ay bilaabaysaa marka in nolol maalmeedkeedii u raadisa carruurtii ay dhashay العلم نور والجهل ظلام أيا ليري علمي ونور جهلي جنا ومجدي قبل ما يصبرن سيدا مجا عيدا الله قرأ ويحلي أي وحبرن لهاد عبهد أيا إبسدي هو يدي وحيك قصبان تهمرك أيضا وليبا داير لحي تمجر مركي تعمس دي تمجر وحي ستلابا إلا سدح عرورة وانا قرب قرقي دي كسو الله بنيسا سيدا أي تهين عدنا أو مقنا عيننا أو مقاتنا waxay hadana bilaabaysaa qaabkii iyo xamaali uu naqaleed caruurtoodii ay u kori lahayd
shaqo kasta ayay waxay u qabanaysaa sida ay u barbaarin lahayd caruurteedii waxbarasho u geyn lahayd ayada oo aanan haysan aabe amba qof garab taagan oo caruurtaasi la koriya halkaas ayay ku weynaanaysaa hooyadaas weliba ayada oona awood amba aqoon u lahayn inay magaceeda meel ku qorto haddii saxiix looga baahdo suul ayay saaraysaa maanta waxaan halkan idinkula wadaagayaa muuqaalkan aabbahan Soomaaliyeed iyo gabadhan 14 jirka ah ee waalidkeeda iibsadeen bal muuqaalka aan si wada jir ah aan u daawano ترتيب أسجودك شنو مركز؟ ستي أنت أمرنها لا إله إلا الله. هذا صوب الله هذا صوب الله. daawadayaal waan filayaa inaad muuqaalka daawateen ilaah baa idinku dhaariyay bal gabadha muuqaalkeeda eega siday u daayar tahay waxay ku jirtaa xilligii waxbarashada ay bilaabi lahayd mustaqbalkeedii la dhisi lahaa gacanta inta laga qabto iskuulka la geyn lahaa lala talin lahaa la waanin lahaa loo caqli celin lahaa ayaa inta la soo kaxeeyay laga iibsaday aabbahan da'diisu intaas jirto ayaan darrada ugu weyn ee maanta bulshadeena Soomaaliyeed haysato ayaa taa ah haddii aynu nahay ragga Soomaaliyeed waxaan u taagannahay dhibaateen joogto ah gabdhaheena Soomaaliyeed mid 14 jir ku iibsada ee laba far u taaga ay yiraahdo farduco ama farxaba kadibna ka iibsada nin asaga la eg ambaba kaba weynba halkaasna mustaqbalkeedii iyo aayaheedii mugdi sida ku galiya mid guursada ee guri geesta kadibna dhibaato joogteen ah ku wada ee gacanka hadal ku wada halkaana aan midna ku caawin inuu caruurta la koriyo mid xabad ku dhufta ee nolosha dhaafsiya iyo mid inta kufsada haddana nolosha dhaafsiya ayaan dhammaanteena isugu soo biyashmanay ilaahay waxaan ka baryayaa gabdhaheena Soomaaliyeed meel kasta ee dunida dacaladeeda ay ku dhibaataysan yihiin inuu ilaahay dhibaatada ka qaada haddii aan halkaas uga soo gudbo diinta islaamka maxay ka qabtaa gabadha da'deedu sidaan ay tahay ee 14 jirka ah ee waalidkeeda ku qasbayo ninka da'adiisu sidaan ay tahay ee gabadhii markii ay diida in ay raacdo ama guursata u soo bandhiga waalidkaasi farduca iyo farxabar haddii ay gabadha diido dalbatana farta habarkaasi miyuu qabanayaa haddaba waxaan halkan idinkula wadaagayaa Sheekh Maxamed Cabdi Umal oo ka hadlayo su'aashaasi kana jawaabayo ayaan muuqaalka ku dhageysan doonaa diinta sheekh hadduu waalidkaaga kugu qasbo oo ku dhaho ama duco qaado ama habaar qaado ninkan gurso haddii aad diido ku habaari ama aad duco qaado ama habaar qaado marka maxaan sameeyaa anigana ninkii rabin guurka wuxuu ku salaysan yahay sidiisaba rido ku salaysan yahay waa in ninka gabadha guursanayana uu ku qanco gabadhu guursanayo saas daraaddeed baa nabigu ku yidhi soo fiiri ma iska fiirisay waa inuu ku qanco gabadhana ama haweenaydana cidda guursanaysa waa inay raalli ku noqoto sidaas daraaddeed baa nabigu wuxuu yidhi sallallahu alayhi wasallam gabadhu hadday bikra tahayna idan baa la weydiin inay raalli tahay hadday garoob tahayna amar baa la weydiin waxay u kala duwan yihiin gabadhu way xishood badan tahay hebel ma lagu guuriyaa haddii la yidhaahdo inay aamustaa dhici karayso aamuskeedu waa ogolaanshahu nabigu sal alay wasalam maadaama ay xishoonayso amaa garoobtu horebay wax u soo martay waa inay amar bixiso aamus laga yeeli maayo intaan bay ku kala duwan yihiin labadooda waxaa ka dhaxeeya guurku rido la-aan ma dhaco waa inay raalli ku yahay ruuxu cidduu guursanayo hadduusan raalli ku ahayn waalidkuma qasbi karaan laa aabbaan qasbi karin walaa cid kalean qasbi karin walaa hooyaan qasbi karin waalidku masalada la doonaya inuu fahmaa waxay tahay
haddii ninkan aad gabadhaada u guurinayso aad adigu ku qanacday adigu xaas u noqon maysid adaa ku qancay sooma adigu xaas u noqonaysa iyadaa xaas u noqonaysa ayadii haddayna ku qanacsanayn guri ayna ku qanacsanayn aad geyso seebaa gurigaas u dhisnaanaya sax maaha saas daraaddeed waalidku waa inuu tixgeliyo ilmaha iyo carruurta guurkooda inay raalli ku yihiin ciddii guursanayaan sax talada ilmuhu gabadhu lama madax bannaanaan karto oo intay waalidkeed ka tillaabsato ciddii doonta iskama guursan karto waalidkuna gabadha ma qasbi karaan oo ninayna rabin kuma qasbi karaan hadday yidhaahdaan ilaaba waa ku habaaraynaa habaar iyo duco qaado oo habaarka in la aqbalo soo ilaahay inuu aqbalo ma aha haddaad si khaldan ku habaarta lagaa yeeli maayo maanta dhan habaar oo lacnad haddadato yaa kaa yeelaya waad khaldan tahay waalidku waa khaldan yahay sidaas daraaddeed waalidku waa inuu garto muxuu xaq u leeyahay oo ilmaha xaqa uu ku leeyahay muxuu yahay iyo muxuusan xaq u lahayn haddaad ilmihii ku maagto oo kula dagaalanto waxaadan gar iyo ku lahayn aadan ku saxsanayn adaa khaldan markaa waalidkaa u baahan in la qabto sidaas daraaddeed guurka gabdhaha la guurinayo waa in la tixgeliyo gabdhuhu cidday guursanayaan sax waalidku waa inuu ka fiiriyo diintiisa akhlaaqdiisa ma dhaqan karaa waa in laga baaraan dego laakiin haddana waa in khiyaar la siiyo oo ay iyadu ku qanacdo haddayna ku qancin lama qasbi karo waalidku ma qasbi karo walaa aabowlaa caqiilkii toona ma qasbi karo in la qasbana maaha in lagu habaaro oo lagu cadaadiyana maaha masaladaasi masale saxa ma ay aha hadday dhacdo oo waalidku yidhahda ilaaba guurso waad iska tanaasuli kartaa oo ducada waalidka intaad iska qaadato waad iska guursan kartaa laakiin waadna diidi kartaa haddaad diiddo habaar kugu dhici maayo sababto waxa waa qaladba in lagugu habaaraaba qalada wallahu ما شاء الله فضيلة الشيخ محمد عبد أمل أيو أها أو رنانتي نوفا فاهنية إن أبياش الصوماليات قبل ده مركي ربان إني كو قصبان وح أيسان كوكان إن أمبانين أيسان كوكان إن كدبنا أصوبان لغلا وفر دعاء حباربا إن أيسان suurtagal ahayn in ay sidaasi ku habaari karaan si kastay ahaato daawade adiga maxay kula tahay ra'yigaagu way noo muhiim maxaase kula talineed aabaha Soomaaliyeed ee dhiiga iyo dhacaanka gabadhiisa oo dacyar iibsanaya ra'yigaagu way noo muhiim qaybta commentiga tag halkaasi nagula wadaag waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan waxaan ku xasuusinayaa haddii ay tahay booqashadaada ugu horeysayna inaad hadda nagu soo biirto oo channelka noo subscribe garayso muuqaalkana aad la garayso si uu baaho asxaab sida adigoo kale qalbi wanaagsan u gaaro muuqaalkan kan xiga inta kulmi doono soo nabad